kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada degalkaygaan ku leeyahay baraha bulshada waxaan ahay Nimco Cumar Xuseen waa kulan kale iyo marti kale waxa maanta marti iigu ah Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi iyo sidoo kale Cabduqaadir Abakar Sheekh Cabdi waa qorayaasha buugga Adal Empire mudooyinkii ugu dambeeyay ama wiigii ugu dambeeyay aad ku arkayseen social media maanta waxay marti ku yihiin buuggiga soo dhawaada marka koobaad aad baad ma santahay wala Nimco waana ku dhawahay kulankaaga goorma ayay idin ku dhalatay buuggan inaad qortaan buuggan Adal Empire waa buug muddo badan soo jiray waa buug taariikh waaweyn ku duugan yihiin waa buug aan ugu tala galnay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay dib ugu soo nooleeyaan taariikhdoodii aan ugu tala galnay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay taariikhdooda akhristaan oo ay dhalinyartan waliba gobolku ay taariikhdii baaraan oo taariikhdii dib u raacaan buuggan waxay nagu dhalatay qoritaankiisu aniga saaxiibkii Cabdulaahi kulli aniga saaxiibkii Cabdulaahi waxaynu isku baranay wax akhriska dhinaca taariikhda waqtiyadaas hilaadii 2021 horaantiisii 2020 dhimaadkiisii ay nagu dhalatay buuggan inaan bilowno ama qoritaankiisa aynu u qalin qaadano Cabdulaahi soo dhaw adiguna bal waxaad iiga warantaa fikirkan buugga inaad labadiinu qortaan yaa keenay maada keenay mise isaga keenay buuggan taariikh weyn baa horta ku duugan waxyaabaha nagu dhaliyay waxa kamid ahaa anaga horta akhris fara badan baanu sameynay waxaan aad u akhriyi jirnay dawladihii islaamka ahayd ee kamid ahayd dawladii islaamka ahayd ee ka dhisneyd dalka maanta Spain loo yaqaan Andalus waxa kale kamid ahaa dawladihii kamid ahayd dawladii Furs ay kamid ahayd dawladii Cabbaasiyiinta dawladii Umayyiinta ay kamid ahayd taariikhaha runtii waxaad ka dhaxarkaysaa markii qarnigii koobaad ee hijriyadii waxaad ka dhaxarkaysaa ninkii la oran jiray Cabdulaahi ibn Saba markii uu faafinay fikirka shiiciga ah inuu aad ugu dadaalayay badda Aasiya inta geeska Afrika ahayd run ahaantii mar badan oo aan aragnay mowduucyadaas baa nagu dhaliyay inaan sameeyno inaan taariikhdeena ururino ayaa nagu dhaliyay fikirkana waan isku la imanay maadaama buug akhrina bal adiguna Cabduqaadir oo arrinkaas bal ka waran adna Cabdulaahi arrinka ka waran labadeedii wadan isku raacno intaan aan buugga bilaabin waxaan dejisanay baleen ah si aan wax kasta oo nala soo gudboonaadaba aan anigu gudbi lahayn markaan baleenkaas dhiganay wixii kasta waa iska fududaan biidnillah Cabduqaadir baan mar labaad ka soo noqonayaa taariikhdan faca weyn leh Adal Empire ama boqortooyadii inaad qortaan waqti intee leeg bay idinku qaadatay taariikhdan Adal Empire maaha taariikhan aniga Cabdulaahi bilownay imika waa taariikh hore soo jirtay saynu ognahay Soomaalidu waxay lahayd taariikho aad u waaweyn oo taariikhaha ajuuraanku ay kamid ahaayeen taariikhaha boqortooyadooyinkan agteeda nagu dhawaa Adal Empire waxa ka horeysay dawlado waaweyn oo dawladii Ifaad loo yaqaanay ayaa Adal ka horeysay Adal horaantii dawladda jeetay waxay xukumi jirtay ilaa 7 kale oo imbaradoriyadood oo ku ag dhawaa oo ay kamid yihiin Dawaaro iyo Sharqa iyo Arabiini iyo dawlado kale badan Adal Empire haddaan su'aashaada u soo noqdo Adal Empire waxay nagu qaadatay inaynu qorno muddo 3 sano ku dhow oynu reference aad u fiican aynu ka helnay buuggeena faca weyn ee uu qoray Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi iyo buugaa kale oo aad u tiro badanba waa taariikh weyn marka Cabdulaahi oo laga hadlayo Adal Empire iyo sidoo kale boqortooyadii siilac waa meel waxyaabo badan ay ku duugan yihiin xogaha ugu badan halkeed ka hesheen horta taariikhda Adal Empire xoga badan oo leedahay baa jira waxyaabo badan oo waxa jira waqtiga Portugiiska oo ku soo duulay siilac oo aad u gabay sidoo cadeynaya buugga la yiraahdo The Layers of the Time oo Ethiopia oo la daabacay 2001 runtii marka de xogtii la gubo sidii Baghdad ba ku dhacday ku dhaceen nimankii Tataarka la oran jiray xogtii inta badan waa yaraanaysaa sadlooga laakiin xog fiican waan helay oo ay kamid yihiin buugga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi kamid yahay oo kamid yahay museumka ee magaalada Harar kamid yahay wax badan yaaliin Saafi Axmed Guri ay yaalaan sawiraan siilac oo qadiimi ah oo guriyihii Soomaalida hore ay ka dhisan yihiin ay yaalaan kutub badan oo la yiraahdo Nuurul Islaam oo kamid yahay ayaa waxaan ku dhacday reference ko badan ka helay barnaamij kale oo Al Jazeera ay sameysay oo Axmed Guri ay ka sameysay laftirkeedu wuxuu noo ahaa reference badan marka reference fiican waanu helnay سيلع لفتر كذا وانو تغني إلى سعادتين جسيرة دها
dadkii noolaana si fiican baan u soo warsanay xogta u badan inta iyo in dadkeena ee magaaladeena Boorama joogay baan ka helnay dhar badan adigu hadda imika xiran tahay dadyogu inta badan waxay isleeyihiin Cabdilaahi dharkan uu xidhay maxay tahay marka loo eego dadkuna inta badan taariikha kama daba tagaan ama ma yaqaanaan dharkan xiran tahay muxuu astaan ahaan u taagan yahay wuxuu astaan ahaan u taagan yahay waxa jiray iskaashi ayaa jiray markaa dawladii Abyssinia ee Aksum iyo dawladii Portugiisku waxay mar walba soo gaashaan buurisan jireen in islaamka mar walba ay geeska Afrika ka tirtiraan marar badan sayna ogsoonahay saylacna marar badan bay qabsadeen oo haddana laga kiciyay haddana markale ay qabsadeen ilaa markii dambe Suudaan Saacadudiin ay 3 cisho ku go'doomiyeen jasiiradda Saacadudiin hadda loogu magac daray markii dambe halka ku dileen caruurtiisii iyo intii ka hadhayna ay u baxsadeen dalka Yemen markii dambe ay berbera ka soo tageen dharkaagan macna ahaan wuxuu ku turjumay xooyaan dawlad waxa jirtay Cusmaaniyiinta loo dhan jiray islaamka ay isku taageersan jireen oo dawladda Adal Empire ka mid ahayd marka dharkaagan macna ahaan wuxuu ka turjumayaa labada dhar aan xidhanahayba midna waa Soomaalida midna Cusmaaniyiinta maadaama islaamnimo ay isku taageersanayeen dawladda Cusmaaniyiinta waxa kale oo ka xusi karaa in ay dawladda inoo dhistay dekada Saylac inoo dhistay ka mid ahayd marka macna ahaan waxa uu turjumayaa iyagu kalgacaylka ay noo hayeen islaamnimada oo inagoo iska Itaaliyaan markaa oo Portugiis isu ka kaashanayna Abyssinia oo aad u awood badnayd oo gaala ahaa waliba taas waxa ku soo noqonaya Cabdiqaadir isaguna wuxuu xidhan yahay astaan kale kulay markaad soo aragtaan waxaad isleedihiin waa iska dhaqanka Soomaalida dharka inta badan xidhan laakiin si kale ayuu Cabdiqaadir igu sheegay markii laga yimaado hidaha dhaqanka ee Soomaalida adiga dharkaaga ka waran muxuu taagayaa aad iyo aad dharkaygani wuxuu matalayaa radiyallahu anhu imaamkeeni weynaa Axmed Ibrahim Gurey oo Axmed Gurey ku magac dheeraa Axmed Ibrahim al-Ghazi la yiraahdo kelmadan al-Ghazina waxay ka timiday Axmed Gurey wuxuu ahaa nin dagaal badan dhinaca gaalada ku hayay oo isagoo Soomaalida oo dhan matalaya oo gaalada jabiyay oo marka dagaaladiisii laga waramay Axmed Gurey wuxuu ku qabsaday Axmed Gurey dawladii Aksum marka loo qaybiyo 4 meelood oo 3 meelood oo kamida ayuu Axmed Gurey dagaaladiisii gaarsiiyay Axmed Gurey dagaaladu galay waxa kamid dagaalkii Weynedega iyo dagaalo kale oo fara badan oo tiro badan ayuu gaalada ku jibiyay isagoo matalaya astaanta Soomaalida oo kaashanayana Soomaali badan kaashanaya canfarta kaashanaya dadkii ahaa gaalaha ee soo islaamay Oromada iyo dadkaas xabashado badnaayeen marka Axmed Gurey ayay sumadani matalaysaa sida walaalkii ka dhawaajiyay weeyaanoo Axmed Gurey iyo wax iskaashan jiray Cusmaaniyiinta oo iyagoo diinta islaamka difaacaya ay isku kaashadeen radiyallahu anhu Axmed Gurey waxaan leenahay sumadiisii iyo sumcadiisii waynu soo noolayn doonaa korna waynu qaadi doonaa meelo badan oo taariikhiisu yaalna waan soo helnay insha Allah researchkeena dambe Axmed Gurey waxaynu baari doonaa si deebliya waxa jirta buugaag badan oo Axmed Gurey lagu dhaleecaynayo Axmed Gurey lagu sheegayo inuu yahay Arab inuu yahay adoon inuu yahay yaani jinsiyada kale ka soo jeedo laakiin Axmed Gurey halkan waxaynu ka cadeynaynaa inuu yahay Soomaaliyeed ka soo jeeda gobolada Awdal iyo gobolada Naamika ku noolnahay ee waqooyiga Soomaaliya mowduucyada buugga waxa kamida taariikhdii Adal Empire iyo siday ku dhalatay sidoo kale diinta islaamku sida ay ku soo gashay Soomaalida iyo Saylac bal mowduuca iyo xaalkiisa waa si wanaagsan buuggu kulli mowduucyo badan uu ka warramaya mowduucyada waxaan rajaynayaa insha Allah inay dhalinyartu ka soo falcelin doonto oo dhalinyartu soo akhrisan doonto dhalinyartu gobolka iyo dhalinyarta Soomaaliyeedba waa si wanaagsan mowduucyadaas way ku jiraan mowduuca ugu horeeya wuxuu ka hadlayaa Adal Adal waxay ahayd isagoo ku sharaxaya kelmadda Adal kelmadan Adal sida ay ku macnaayaan buugaagta qaarkood waa al-cadli bay ka timid oo cadaaladii marka dhaqanka Soomaalida loo yimaado Adal marka la macnaynayo Adal Soomaalida waxay u taqaanay afar dhul baa jiray oo dhulka waxa loo kala yaqaanay Arad iyo Adal iyo Irir iyo Uub marka dadka dhagax jooga ayaa magacaanta bixin jiray oo saad ogtahay magaalada agteena ee farda lagu xid oo magaaladii fardaha ee lagu xiran jiray oo dagaalada laga qaadi jiray marka waxay oran jireen Soomaalidu irirna lama dogo adalna lama dogo laakiin reerka waxa la dijiyaa Arab marka ereygan Adal waa dhul wax ka baxaan waa dhul yaani la inuu wax soo saar leh ayaa Adal loo yaqaan marka dhinaca Soomaaliga loo eego irir Soomaaliga galayo
يعني وتاريخ ذاوين مقع إيرنا أنجا أو قبل كأوضل دنيرت واحد بحيسي سجانت أوضل بحيسي بوجو markuu adalku sharaxo wuxuu ku gelinayaa diinta islaamku iyo sidii ku soo gashay sidoo wada ognahay xadaarada Soomaalida iyo geeska Afrika dhamaantood waxay ka bilaabantay magaalada xeebeedka Saylac oo magaalo taariikh iyo fac weyn leh magaaladaasi oo ah magaaladii naga soo gashay diinteenu xusaya buugeenu in taariikhda markii diinta islaamka ay soo gashay dhulkeena ay markii ugu horeysay yimaadeen Usmaan bin Affan radiyallahu anhu saxaabigii weynaa iyo ooridiisii Ruqayya bint Rasuul oo gabadhii rasuulka alayhi salaatu wasalaam ay ku soo degeen magaalada Saylac oo taariikhaha qaar iyo buugaagta qaar ay sheegayaan in Ruqayya bint Rasuul ay wiil yar oo calooshu ka haysay kaga shafeecay magaalada Saylac oo dadka taariikhaha yaqaan iyo buugaagta qaar bay ku xusan tahay dabadeed waxa ka daba yimiday Jacfar iyo ilaa 40 asxaabi oo hogaaminayo oo u socday boqorkii xabashada ee Najaashi iyagana wax lagu soo dhaweeyay si fiican magaalada qadiimiga ee Saylac magaalada qadiimiga ee Saylac waxa cadeyn buuxda oo imika taala inoo ah masjidka weyn ee qiblateynka loo yaqaano oo la og yahay inuu masjidka ugu qadiimsan yahay intan geeska Afrika iyo dhamaan Afrika xeebaha ku yaalaba marka halkaas ay diinteenu ka soo gashay geeskan Afrika iyo dhamaan Soomaalida buugu waxa kale uu ka sii waramayaa magaalada Saylacna si gaar ah u xusay oo Saylac xadaaradeedii iyo albaxnimadeedii iyo dadkii ku noolaa ayuu ka sheekeynaya buu Cabdullaahi hadaan u yimaado mowduuc kale oo soo ku arkay buugga ugaasidii Gadabuursi baad ku xusteen isagana oo ilaa 17 aan ka arkay inta buugga ku xusteen bal mowduuca isagana faaladiisa والله إني معه هرتين أجاسين قلين وح مهمين المجا عن جد بورسي عن لفتر كيسة فلقي قسمه مجا عن جد بورسي وحوية وجدو هي بورس أنا ساق شابورت وخلنا وجد هي بورسي وحاج شراء مر كي دجال كي بقرته دي قالها الله رجل بقركي على بوري مرة بدن وجبي بعشرين markii uu jabiyay kadib waxa dhacday in ay dadkii Gadabuursigu ay halka ka socdeen tagan magaalada Gado marka halka ay isku gaasho buureystaan oo ay ciidamo badan ku soo urursadaan marka magaca Gado iyo Buursi halkaas ka yimid runaantii saasan magaca soo qeexaya intaan ogaasida laftirkooda gelin waxa kale oo jiray fargada Buursi waa jiray waxa kale oo jiray dastuurka Gadabuursiga la oran jiray waxa kale oo jirtay astaan oo ahayd ogaasida Gadabuursiga oo dhan astaantaasi waxa ay ahayd ugaas kaste oo la caleema saaray in la geeyo ceelka la bigi la dhaaf ceelkaas loogu meeri jiray dharka loogu soo gelin jiray boqornimada halkaas marka uu shaqada ka qaban jiray sidoo kale waxa jirtay boqol nin baa jirtay oo la oran jiray saangolaha wakiilada oo kale ayay jirtay boqol kaani way talada la gorfin jireen saangolaha wakiilada hadoo kale waxa kale oo jirtay afar nin oo isaga u sii dhawaa oo de hadalkaas malaha dhacda gafubay ku noqonay afarta dhadhaar oran jiray oo talada aad loo gorfin jiray ayaa jirtay markaasaas ayaa ahayd ugaasida Gadabuursigu ugaaskii ugu horeeyay waxa ahaa ugaas Cali buu ahaa wuxuu dhashay 1575kii waxaana la caleem saaray 1609kii la caleem saaray waxa uu ku dhashay magaasha la dhahdo Doobo ku dhashay waxa lagu caleem saaray in meesha la dhahdo ceelka bigi la dhahdo ugaasidu saas u taxnaayeen aad bay u farabadnaayeen sidoo kale waxa jiray ugaas Rooble ugaaskii tobnaada ayaa jiray oo xilligiisii oo ku soo beegantay 10kii la oran jiray geediyada ragii geediyada oran jiray kamid ahaan Rooble aftiibiye kamid ahaan geedi waraabinkii la oran jiray kamid ahaayeen marka taariikhda ugaasidu saas u soo taxnaan hadda waxa ugu dambeeyay ugaas Cabdirashiid oo hadda qurbaha ku nool saas marka taariikhda Gadabuursiga u soo taxnaayeen mar waxa jirtay sida taariikhda ay qaaray xusaan ay boqortooyada dawladii Masar isku dayday inay xilka ka turto ayaa jirtay marka marar badan inay dilaan bay isku dayeen laakiin waxyaabo badan ay kala kulmeen caqabadaha ayaa jiray markaas markii dambe hal gelin bay siiyeen saasay marka taariikhda in ogaasiduna waxay ku soo bilaabantay markii ay dawladii aadal dhacday kadib ayaa ay saa u soo bilaabantay sidoo kale Cabdiqaadir waxa kamid ahaa mowduucyada buuggan ku arkay inaad soo qaadateen hal doorkii gobolka Awdal iyo Saylac iyadana balka waran buugga ayay ku xusan tahay dhamaan hal doorka gobolka Awdal laakiin waxaan afeefteena oo buugga ku xusan in hal doorka Awdal aanu ku dhameyn buugga oo hal doorka Awdal aanu baahnayn wax ku jamciye meele
laakiin mid loo qaado waxa ku jira suugaanyahankii weynaa xasan sheekh muumin ayaa ku jira xasan sheekh muumin gaafane ayaa ku jira waxa kaloo ku jira Dr. Cusmaan Cumar Raabi ayaa ku jira iyo dad kale oo tiro badan oo ilaa iyo 10 ku dhow waxa kaloo xusid mudan oo ku jira xaaji diide oo ahaa nin ganacsada oo nin ka ganacsanayay Saylac iyo Herar waxa kaloo buuga kamid ah macala ganacsiga Saylac marka laga warramayo Saylac iyo waxa isku xidhnaa magaalada loo yaqaano Herar oo isku xidhnaa iyagoo wax iska ganacsan jiray yacni ganacsigoogu waxa uu loo isticmaali jiray waqtigaas awr oo ilaa 500 awr ayaa 4 biloodba loo rari jiray magaalada Herar marka dhinaca ganacsiga laga hadlayo waxa kaloo xusid mudan haldoorka awdal inaan waxa ka xidhan doono aniyo saaxiibkay inaynu insha Allah mid aynu isku dul taagno oo taariikhdoodii mid aynu baarno haldoorka awdal waxa kaloo kamid ah suugaanyahankeenii weynaa ee Afkuriye oo ereyada uu soo saaro ereyada uu xuriyay ee suugaanta ku soo daray aad u qiimo badnaayeen ay kamid ahaayeen ereyada kalarada ay kamid ahaayeen inuu maalmaha uu ku sheego af Soomaali oo luqadeena ku sheego oo kalarada buluuga oo kale waxa dhalinyarteena aad iyo aad ugu qoslin jirnay ana marka aan wadiin jirnay markaan buuga wadnay ereyga loo yaqaano blue wuxuu af Soomaali ku noqonayo inay garan waayeen dhalinyarteen marka laakiin waxa soo saaray suugaanyahankeenii weynaa ee Reewdal ee Awaan Afkuriye ayaa buugay ku xusan tahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inay buuga ka akhrisadaan buugana wax badan soo kordhin doono afeefta soo ku jirto weeyaan in badan oo ka tignay way jirtaa hadda intan aan xogtoodii oo heli kareynay horta nin walba nimcooy maalmaha uu nool yahay baa u sameynaya macno daqiiqadaha uu nool yahay buu ku noqonaya geesi dadka qaarna ay ku noqonayaan maxaan ku dhahday yacni dadda taariikhda aan geesiyada ka hoos maro kale haldoorka gobolka awdal ruuxantii hadda intaan imika aan ku xusnay buuga mid wala marka soo sheegno ummadda Soomaaliyeed waa garanaysaa waa yahay waxa ugu horeeya Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi baa ugu horeeya oo la garanayo kii gorsigii Soomaaliyeed wax barasho ka bilaabay 1933 ninkii fargada buursiga keenay oo ahaa waxyaabo badan qabtay ayuu ahaa waxa kaloo ku xiga ninkii la yiraahdo Muraad Mubaarak Cabdalla oo ah ninka calanka Soomaaliland sameeyay ninka baasaboorka Soomaaliland hindisay kamid ah ninka khariiradaha iyo Soomaaliland hindisay kamid ah waxa kaloo ku jira Aadan Isaaq ayaa ku jira oo la garanayo halkuu Soomaali iyo madaba ku jiro oo la si fiican loo wada garanayo waxa kaloo ku jira xasan sheekh muumin gaafane ku jira oo la wada garanayo jecel halka inaan sheeko kamid kaga sheekeysano wuxuu ahaa horta cabqari aad u weyn buu xagga curinta sheekooyinka wuxuu curiyay sheekadii ahayd bisada ay Soomaalida in badan dad YouTube ka wada wadaan marka sheekada bisada ay Soomaalida ka metelay wuxuu yiri hadii aad socoto oo aad bisoo tagto ku tirada magaca bisad bay koodhan hadii aad dhaafto tukalo tagtana magaca ka tirada kulaal bay koodhan marka Soomaalida ka metelay waa si dhaafi mid kale aad tagi waxay koodhan dinad mid kale aad tagi adigana maxaa la wada basho way koodhan saad u socotay iyo way oran markaas uu basho mid badbaadinayaayo macna badanida ma Soomaali baa taa sheekada kale oo ku soo qaatay waxa kamid ahaa nin baa subaxii ka lahay ninka markuu subaxii ka lahay baa uu shaqo tagay waxba uu soo waayay shaqo waxba uu soo heli waayay duhurkii uu soo noqday markuu kadib duhurkii soo noqday baa waxa islaantiisii ayaa xaaskiisii badeec u sii dhigtay qadadii baasta yar iyo rooti yar oo bilow baasta diiqaad rooti yar baa ku tarsan markaas iyadoo markuu saaka sii kacayay ayay bashadan way raaxa jecesho gogoshu sii widaaratay markii gogoshii seexatay baa waxa dhacday oo tiri markuu baasta la soo dhigay soo kacday markaas miya uu soo tiri armay ka cawdidaa wiido in yar buu dhigay ma cunawayt haddana in yar rooti u dhigay xaashabad maxaad cuntaa wiil waxaan cunaa tiri hilib iyo caano bashay kii soo shaqaystayba ma helin hilib iyo caano ma cunin maxaa adiga basar xumid ama Soomaali baa taan marka wuxuu ka sheekay dhinaca qoyska runtii dhinaca qoyska markuu sheekeynay dadka bini'aadanka ma noolaha oo dhan marka ay qoys ama ay jiil ama awlaad abuurayaan si fiican bay isku shaqaysadaan laakiin bashada sanumna qayladeeda hatta jaarka ka marka
markaa wuxuu yidhi bashoy maxaa cawradaadii marwaba bannaanka keenay basar xumida ma Soomaali baa tahay sheekooyinka kale aan ka xusi kara haldoorkeena waxaa kaloo ka mid ahaa afar uu sameeyey oo hadda ilaa iyo hadda laga yaaban yahay cabqari weyn ahaa waxaa ka mid ahaa dab dhaxmood dabku sanaqanimo oo dhaxmood dufan basaasay baa ka mid ahaa dufanka inaga basaaska kaga bino saliida basana dufanku ma oo basaasay karayso dawo bukooti baa ka mid ah durdur oo baa ka mid ah saddexdaas baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa gorayada dhasheedii arooriga dhigtaa baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa far Soomaaligii 1972 markii la qorayay inuu si fiican uga qayb qaatay oo dadka indhaha la ka dhagax qabay ka weyn tilmaanta garanaya inta uu si uu sheegi jiray ayaa kaloo ka mid ahaa hadal waxba yaan kugu badin waxaa kaloo ka mid ahaa afquriye ayaan isagana in yar awaan afquriye wuxuu curiyay gabay la yiraahdo wankayga cadwanahay gabayga markii curiyay waxaa jirtay dalal islaam oo awood badnaa jiray Pakistan ay kamid ahayd Iraq kamid ahayd Liibiya kamid ahayd Bajri mid kasta waa lagu duulaa waxa la yiraahdaa un dalbay ku duushay gaalada marmarsiyo uga dhiganaysa cagtoon bay mariyaan marka wuxuu ayuu ka soo sar qaatay wankayga cadwanahay marka tusaale wuxuu soo qaatay isagoo dhulka abaar ka dhacay oo warka waagi hore waa la qulul jiray qulul wax la sameyn jiray iyo meelaha gubanka iyo dhulka roobka dal tagi jiray wuxuu sameeyay arigiyo la sii qulinayo baa waxa ku jiray wan cad oo shilis oo baruura iyo wan yar oo dhuuban oo caataa ku jiray markuu socodkii dheeraaday wankan quruxda badan leh cadii intiyo durduriyo ayuu wankan yar kale mar walba sida intuu qoslo dooshana ku qosliyay hatta habeenkii markii la degay reerkii degay nasteen baa waxa imideen nin wadaadintana waagi Soomaalidu waa naqaanayo waxay sameeyaan marka xafidmada neefka ariga weyn baa loo qali jiray marka wadaadkii soo galay oo ninkii xaaskiisu ku yiri wadaad bay noo joogay ariga neefka weyn soo loog marka wankii dhoosha ka qoslay waa la soo qabtay waa la leeyay markaas uu ku yiri baruurtii wadkaaga weey sheekadaas oo kala ka mid ahayd أنا كوسو كوبي حكى لك من هذا دكتور عمر عثمان رابي بوغاق بدن قري عبقري أها وكمد هذا تكي حرية دلك جيبوتي وأولوية وحيابها ياب كلا كمد هذا حكى من هذا مركز دولة طليانية دولة فرنسيسكا حكومية نجومي سنشري سفير كوجين مقشلة وافطوبتين السجن اللي جوسو سيداية أنت وجهل كوتشرينا أو ديارية يعني علوم فربضن وديارية waxaa kale oo kamid ahaa on hadda aan ka cusub kara xaajitiido kala kamid ahaa ganacsado weyn buu ahaa maalkiisu ilaa lagu hayay ilaa sayla ilaa iyo xirar oo aad u daasanaa intaas hadda ka cusub kara doorka gobolka intaad bulshada ku dhex jirteen ama buuggan aad qorayseen waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama caqabadeed la kulanteen maxaa kamid ah waxyaabaha ugu caqabada badnaa aniga saaxiibkay isla aqoonsanahay mar walbana ku celcelino meel walbana ka sheegno ayaa ah taariikhdan facaweyn leh sugnaashaheega xaqiijinteeda iyo inaynu taariikhda ka dhigno taariikh raad loo tixraac leh aynu ka dhigno aynu ku dadaalno ka taariikhda helitaankeegu uu fudud yahay oo qof walba uu ku sheegi karaa qof walba inuu kaaga sheekayn karaa laakiin waxa ka sii adag inaad taariikhdan runta tahay inaad hesho oo xaqiiqteeda aad meel ugu tagto marka waxyaabihii ugu interestsanaa waxay kamid ahaa maalmaha qaar waxay nagu dhici jirtay inaynu safar gali jirnay aynu safar u galnay meelo ilaa iyo dirdhaba aynu safar u tagnay dhinacan waxaynu tagnay ilaa iyo saylac safaradaasi waa safaro aynu wax badan ka baranay safarka intaad ku sii jirto ayaad su'aalahaagii iyo data collectionkaaga aad ururinaysay aad dad bulshada safarka kula saaran aad weydiin karaysaa marka waxa jirtay dad badan oo wax weydiinay oo yacni si fiican wax noogu sharaxay oo qabaa'ilka Soomaalida hana baraan waxyaabo kale oo fara badan iyo cidii adal ay hayd iyo cidii adal ka soo jeedayba marka waxyaabaha ugu interestsan waxa kamid ahaa inaynu maraynu joognay magaalada Saylac aynu la kulannay dhowr nin oo aynu arkaynay Carab yihiin oo doon saarnaa oo rabnay balni doonta naga kireeyaan ama aynu saan jasiiradaha u gaadhno buuggeena waxa kale oo ka xusan jasiiradaha soo qaadan ka xasuustay 7 jasiiradood aynu leenahay gobolkeenu leeyahay saacaddiin ugu weyn tahay ay ku xigto ceebaad iyo musheekh iyo dhamaan oo buuggaad ugu tagi doontaan dhamaantoodna magacdoodaasi waa magac yacni xadaaradii adal tilmaamaya oo magac Turki ku jira magac waxa ku jira Hindiya iyo magac kale aan ku socday ragga aynu tagnay
aynu weydiinay inay doonta naga kareeyaan marka af carabi ayaynu iska baadhbaadhnay aniga saaxiibkayo af carabi baynu ka weydiinay iyaguna waxay nooga jawaabeen Soomaali dee naga weynba ay naga jawaab war waa kun sidii weynada annagu Soomaali baan nahay meeshan waa meeshayadii oo deegaanka iyaga Saylac oo Saylac annagaaba ka jidka aw yeeshay ay ku noolaayeen marka laakiin physicalkooga iyo marka wajigooga arkayso Arab bay way kaayeen marka waxyaabaha nooga interestan inta kalena saaxiibka ku dari doona ayaan maleeyaa laakiin waxyaabahaas ka mid aha adigoo ku sii soconaya Cabdilaahiyo marka laga yimaado inaad ku soo ururiseen taariikhdii adal buugan maxaa kale oo idin waxaa noo qorshaysan inaan film matalo wonderka ku matalo noo qorshaysan waay dadkii filmaanta dee sidii loo jilay yaqaanana aan mar walba la xiriirno waayo taariikhda exactly sida taariikhda Andalus oo kale luqado badan baa loo turjumay taariikhda Cusmaaniyiinta waad ogtahay ilaa luqada Xabashiga hadda sii maraysa luqadaha Urduga iyo luqado badan baa la gaarsiiyay luqado badan oo jira annaguna kasto dadaalkayga aan yareysanay waan inaan ka gaadhno ayaan hiigsanayna waxay ahaayeen Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi iyo sidoo kale Cabduqaadir Abubakar Sheekh Cabdi waa qoraayaasha buugga Adal Empire oo weekii ugu dambeysay ama toddobaadkii ugu dambeysay social media aad uga arkaysan waa boqortooyadii adal ayay ka qoreen buugga waxay maanta marti ku ahaayeen bogayga Nimco Cumar Xuseen waan u mahad celinayaa qaabka quruxda badan leh iyo sidoo kale waqtiga ay soo siiyeen waxa kamarada duubaya Abi Maxamed Cabdilaahi Askar waxay dila socodsiinaysaa anigoo Nimco Cumar Xuseen page-ka ku xidhnaada follow gareeya share gareeya sidoo kale like gareeya balankeenu waa warar iyo barnaamijyo ku xiiso gelinaya qaabka aad ugu xidhnaanayso bogayga waad ku mahadsantihiin